hooyo nuurto maxamed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo runtii mas'uulka ahaa inaan aad ula soo xiriirno oo ku soo xidhanno xaruntan runtii waan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka meeshan runtii meel waxa jirtay marka la iga casuumo la igu dhaahdo ka hadal aan aad aftahan ugu hayo aad tamar ugu hayo oo aad aan u maxaan ku dhahdaa buska kiciyo laakiin runtii hadda dareenkayga yani ma cabiri karo aad baan u qiireysanahay waxaan dareemi karaa mas'uuliyadda iyo wanaagga iyo waxqabadka halkan ka dhacay waxaan rabaa inaan idinka codsado marka u horeysa in hal mar aan maamusno oo u istaagno hooyo nuurto maxamed cadow oo runtii garab iyo gaashaan u noqoto idinkoo iga raaliya way mudan tahay hadday 800 oo gabdhood ay marsiinayso hooyadu way mudan tahay hooyo waxaan ku leenahay noolow hooyo macaan waxaad taageertay oo aad garab siisay dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan midda agoonta ah iyo midda rajada ah iyo midda wax aan waxba baranin dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo midda caanka ah dhan baad wax tartay kaalin wanaagsan baad qaadatay waxa tahay hooyadeeni aadaan kugu abtirsanayna aadaan kugu faylayna hooyo macaan guuleyso waxaan ognahay inaad noo hiilisay intaas kadib hooyo aad baad mahadsan tahay runtii wax afka laga sheegi karo ma ahan hooyo mahadcelinteeda ما هليلي هذا الكا درين كي يسودو هو بدلين هاي شعورتي سيدا تاي يشقد ماشان laga qabtay aniga markii saddexaad aan xarunta soo booqdo waaye habka gabdhaha u tababaran yihiin aadaabta ay u leeyihiin niyadooda xataa waan dhaxgal anigu waan la sheekaystaa sida ay ugu kalsoon yihiin farsamada meesha ka socota iyo sida ay hooyadood u liid garayso ama u jahayso runtii waa mid ay kaga duwan tahay dhammaan xataa qaybaha iskoolka lagu dhigtaa ama lacagta lagu bixiyo jaamacadaha wallahi inaysan u qanacsanin sida gabdhaha agoonta boondariga u qanacsan yihiin kuwa lacagta bixisada marka waxaan ku leeyahay hooyo maxaan mahadsanid khayr Allah ku siiyo waxaan rabaa inaan dhaho gabdhaha yaryar ee jiilka hor fadhiya ee Soomaaliyeed aniga idin hor taagan najma qaran bilaa leedahay meelahaas ka soo muuqda waa ay aragtaa waa ay fiirisaan rajaanahay aniga hooyaday way dhimatay rajaana ku soo koray idin la mid baan ahay xarunta waxaan rabaa sariirta inta soo qaata hadda inaad dhinac soo dhigto oo aan laftiga xarunta idin kula noolaado baan doonayaa waxaynu nahay isku baahi waxaynu nahay isku jir waxaynu nahay isku dan waxaynu nahay isku rabitaan إن شاء الله تعالى سيده هرمودك هو ينورتا أيدين كنا قطعي وحي قرب يجاشان عن إيدين عن نوجب بهتان أنا قلنا قرب كنا ينتاجنا محن الله هاي عرورتي دلكي جاي وحيدين عربنا يا ليدين عاونا هيا إن العندي جلسان عاوي ما أدت الكينيو عرضا دلاتين يو على juhdiga iyo dadaalka iyo nadaafadda iyo garab istaaga iyo waxbarashada la idin gelinayo natiijadeedu waxa la rabaa in dalkeena ka muuqato natiijadeedu waxa la rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inay ka muuqato natiijadeedu waxa la rabaa hooyo nuurto inay bari ka maalin arki karto gabdha professor gabdha siyaasiyiin gabdha ganacsato gabdha hal abuur gabdha doctor oo iyagu maxaan ku raahdaa ay Soomaali gelisay natiijadina wadanka dib ugu soo celiyay oo garab qabtay kuwa waqtiga iyagu guusha gaadhay baahan ma isku raacnay idinkuna booska hooyo nuurto kale inaad gelinaysan isku raacnay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabay hooyo nuurto maalinka dhaweyd markaan hooyo ku soo booqday waxaan ka diyaariyay qormo yar baan xarunta ka diyaariyay Facebook-gaygaan soo dhigay runtii dad badan baa ila soo xiriiray Soomaaliyeed oo arrinkaas ay aad u taabatay hooyo nuurto waxaan ka codsanayaa in ay u samayso sanduuq heer Soomaaliyeed ah gabdhaha Soomaaliyeed ee agoonta inay sanduuq u samayso maadaama ay jiraan dad adduunka dacaladooda ku nool ama gobolada ku nool oo doonayaan ama danaynayaan inay gabdhaha Soomaaliyeed ee agoonta ay garab siiyaan inuu hooyo u samayso sanduuq loogu tabaruci karo oo qofka baa joogay ka bakood joogay ka raas casir la raas kambeena jooga ee doonay inuu gabdhaha Soomaaliyeed agoonta u waxtaro uu wax ugu ridi karo kuwa dibadda joogaba marka hooyo waxaan ka codsanayaa inay sanduuqaas noo samayso qofka u horeeyay ee wax ku ridaana si mutadawacnimo anigu ahaan doona insha Allah taala mar walba waxaan rabnaa hooyo inaysan ku dayacmin hooyo macaan qalbigan aad ku qoran tahay hooyada Soomaaliyeed taala u taagi doona insha Allah taala mana ilaawi doona abaalkii doorkan siisay waad mahadsantihiin khayr Allah idin siiyo salaam alaykum.